السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا سومالي ويمن بدون ذاك جوتان كسر هذا شرعية أكاديمي جيلك عقصك كسر هذا إن شاء الله تعالى. وحين ما أنت فلنقين دونا وفاهين دونا هدو اللي مبوجين وهرية وأن صوص مرس كريني أن كسوكوني بوجا سو ميد كميدا بواكتا هرمرينتا نفتا من self development كودو وين كميدا بوجا مجلس وحالي هذا 7 habits of high effective people dadka ugu saameynta badan dunida dadka ugu maxalli ah wax qabadka badan dunida todobada dhaqan ama todobada caado ee inta badan ay leeyihiin dadkaasi maxay yihiin falanqeyn doonaa hadduu allid man waxaan rajeynayaa inaan wax badan aan ka faa'iidi doono horumarin nafteena aan ku sameyn doono insha Allah taala waaya intaan guda galin todobada dhaqan ee jirta ama todobada caado ee jirta intaan guda galin waxaynu isla arkaynaa insha Allah taala mid kamida ama qayb kamida wax la yiraahdo proactive iyo mindset maxay kala yihiin labadan shay maxay kala yihiin haddaba in aan noqoto qof proactive ah qof wax soo saar leh ama ficilkiisu saameyn leh haddii aad rabto inaad noqoto waxay ku xiran tahay aragtidaada waxay ku xiran tahay maxay aragtidaada sida nolosha u aragto sida ashyaada u aragto sida shayada nololeed u aragto ayaa waxay ku xiran tahay inaan ficilkaaga noqdo mid saameyn leh iyo inuusan noqonin haddaba maxay tahay arrintaas inaan faahfaahinaa doonayna maxay tahay saameynta ay ku yeelanayso ficiladayda wax soo saarkayga wax qabadkayga iyo aragtideeda maxaa isku xiray tusaale haddaan usoo qaadano haddii uu jiro qof aaminsan in nolosha qof hadduu horumar gaaray inuu ku gaaray wuxuu ku dhashay horumarku waa lagu dhashaa oo inugu shayga wuxuu ku dhashay qofka noocaasa iyo qof aaminsan in horumar in la gaaro u baahan tahay dadaal iyo juhdi aysan ahayn keliya wax lagu dhasho labadaa qofood farqi weyn baa noloshooda u dhexeeya tusaale ahaan kan koowaad ee aaminsan in ay tahay wax lagu dhasho qofka noocaasa wuxuu noqonayaa qof haddii caqabad yar ay soo wajahdo iska daynaya maxaa yeele wuxuu dhahay orna waxa laguguma talagelinoo ma tihid maxaa la yidhahda noocii kusoo bixi lahaa oo dadka haddii ahaan lahayd shaygan qof ku dhashay haddii aan ahaan lahayd wax badan baa ka qaban lahayd buu dhahayaa halka qofka kale uu dhahayo may waxay tahay waxa noloshu sidaa ma ahane waa aragtideena haddaa bedelo oo aan ka dhigo war waxa kan sidaas ma ahan waa wax la baran karo la qaban karo la isku dayi karo qofka noocaas natiijo weyn ayuu nolosha kasoo hoyin karaa ama ka keeni karaa waayahay maxay tahay mid ka mida shayada ugu muhiimsan ee qofku wax soo saarkiisa iyo noloshiisa ku yeelanaya waxaa weeye habka uu arko noloshu siduu u arko fikradaha u kayso dhaqaalaha qof wuxuu aaminsan yahay dhaqaalaha in fikir noocaas lagu samayn karo ama sidaas lagu samayn karo qof aaminsan qof wuxuu aaminsan yahay mustaqbalka ka aaminsan arrin maxaa la yidhahdaa mugdi iyo wax lamida ka aaminsan hadba nolosha saad u aragto ayay natiijadaadu ay noqonaysaa haddaba faa'iidooyinka ugu waaweyn aad ka faa'iidayso buuga kan waxaa weeye sidaad u dhisi leeda aragtidaada markaas aad dhistana waxay noqonaysaa maxay natiijadaada mid wanaagsan bay noqonaysaa natiijadaad doonaysan haddii aad hesho ficiladaada mid wanaagsan bay noqonaysaa ficiladaada haddii wanaagsanaadaana waxaad helaysaa maxay natiijada nolosha aad doonaysa aad helaysaa faa'iidada koowaad waa maxay faa'iidada koowaad waxaa weeye waxay kaa saacidayaa buuga kan in aad dhisto aragtidaada haddii aragtidaada aad dhisto ficiladaada saameyn yeelanaya ficiladaada haddii ay saameyn yeeshaanne natiijada nolosha doonaysa ayaad ka helaysaa faa'iidada labaad ee buuga kan aad ka helaysa waxaa weeye in marxaladaha nolosha qofku u maro si dhaqsi aad ku marto marxaladda koowaad ee loo yaqaano dependence ku tiirsanaasho marxaladda labaad ee loo yaqaano independence qof madax bannaan qof aan ku tiirsanayn iyo marxaladda saddexaad loo yaqaano interdependence oo ah wadajir in lagu wada shaqeeyo marxaladda koowaad ee dependence qof walba uu soo maray waa marxaladii aan ku tirsanahay waalidkeen iyo aan ku tirsanayn si gebi ahaan nolosheenna ay ku tirsanayn oo wax walba doonayno aan ka rabna maxay waalidkeen inuu noo qabta ama inuuna siinu ka doonayno way marxaladda noocaasa laakiin markii tarbiyeen iyo wax sheegid badan nolosha wanaga tarbiyeeyay marxaladdaas waan ka gudubna maxay waxaan u gudubnay independence waxaan u gudubna marxaladda madax banaanida marxaladda in loo gudbo waqtiga loo gudbayo qofka qof kale uu ka duwan yahay
waxaa laga yaabaa qof 15 jir 16 jir isagoo ah inuu noqdo qof mustaqil ah qof madax bannaan oo marxalada labaad u gudbay laga yaabaa qof 40 jirna inuu weli marayo marxalada ku tiirsanaanshaha marayo ee uusan gaarin interdependence uusan gaarin weli uu ku jiro marxalada dependence uu ku jiro mas'uuliyadda noloshiisa uusan qaadi karin marxalada ugu dambeysana waxaa loo yaqaanaa interdependence markaan independence noqono waxaan nala soo gudbanaanaya dee maxaa yeele waxaynu noqonaynaa dad shaqeeya family baynu yeelanaynaa reer baynu samaynaynaa team baynu ka mid noqonaynaa project ama mashruuc wada interdependence bay markaanu samaynaynaa interdependence-gu waxaa weye wadajir in lagu wada shaqeeyo dad isku hadaf isku aragtiyo isku fikra si wadajir in looga shaqeeyo haddaba buuggan 7 caado buuggan kan uu ka hadlayo 3 ka mid ah waxay kaa saacidayaan 3 ugu horeysa waxay kaa saacidayaan inaad ka soo baxdo marxalada ku tiirsanaanshaha aad timaado maxay marxalada isku tiirsanaanshaha aad timaado halka 4 5 6 3 caado ee xigtana kaa saacidayso marxalada ku tiirsanaanshaha sida kaga bixilaad u bixilaad maxay marxalada isku wada tiirsanaanshaha aad u gali lahayd halka caadada ugu dambaysa 7aad ee ka wada dhaxaysa dhammaan 3 marxalado ee ka wada dhaxayso muhiimna ee u tahay haddaba haddii aad doonayso qof saameyn facaashiisu leedahay inaad noqdo hadaad doonayso waa inaad noqotaa qof madax bannaan waa inaad noqotaa qof independence ah marxalada noocaas inaad ka gudubta ayaad u baahan tahay haddaad dependence tahay ficaashaadu saameyn ma yeelanayso ficiladaadu iyo noloshaadu saameyn ma yeelanayso haddaba waxaynu u baahanaa maxay inaynu ku dadaalo independence sidaan ku noqon lahayn kadibna aan ku noqon lahayn interdependence insha allahu tacaala waxaynu gudageli doonaa 7 dhaqan ee kutubka ama buugga uu ka hadlayo mid baynu u dul istaagi doonaa hadduu alla idmo ku soo dhawaada insha allah